aan ku bilaabo horta waxaan ku dhashay degmada Afmadow 85 kadib dagaaladii waxaan u qaxnay Kenya 92 Liboy tagnay kadibna xiriyaha Dadaab waxaan ka bilaabay dugsi hoose dhexe halkaas igu dhamaatay 2001 dugsi sare ayaan ka galay 2005 ay igu dhamaatay 2006 2007 waxaan u wareegay Nairobi oo aan waxbarasho u tagay waxbarashadii kadib gaarisan dib ugu soo laabtay aan waxbarashadii haddana wareega sii watay Nairobi ayaan ku laabtay jaamacadda halkaas ka galay jaamacadda kadib 2011 September ayaan dib ugu soo laabtay wadanka si aan ugu adeego bulshadeedii hay'adda cunada adduunka shaqo ka helaan Soomaaliya dib ugu soo laabtay marka Cabaasow baraha bulshada ayaan fiirinay saakay dad badan waxay ka hadlayaan nin horey qaxooti ugu ahaan jiray oo Dadaab ku sugnaa oo haatan xildhibaan noqday wallahi waxay ku tusaysaa qofka resilient siduu yahay nin Dadaab ku koray nolosheeda dabcan waad ka fikirtaa nolol saalan ma ahayn haddii aad meeshii fursad u heshay dadaan xilin aad wax u soo baratay dalkaaga aad dib ugu soo laabatay aad sanado soo shaqaysay hamigan uu jiro in aad wadankan adoo dhex joogo aad wax ka qaban kartid oo aad micnaha barnaamijkii fursad u heshay inaad xildhibaanadii ka mid noqoto wallahi aadan ugu faraxsanahay dowlaha guud ee qaranka ayaa waxa uu goordhow in uu tacsiyeynayo qarabadii iyo qoyskii uu ka baxay wasiirkii maanta goordhoweyd oo caawa ah ay istaafkiisu ku dileen magaalada Muqdisho kadib markii rasaas ay isku fureen labada dhinac sida uu haatan Shabeelle u sheegay hanti dhowraha waxaana uu geesta kale tilmaamayaa in ay ciidanka dawladdu baaritaano wadaan telefoonka ayaan kula hadlay markii hore isagoo u tacsiyeynaya ehelada iyo qarabadii uu ka baxay wasiirkii howlaha guud ee Soomaaliya Cabbaas Siraaji oo maanta magaalada Muqdisho caawa fiidnimadii lagu dilay بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون وحان كتعسينيا يريدين حزن العيد كنتيني ولكن عباس أكسيدنت يا دعي مركا أهل كيسي خرابي رسم كيسي دمان وان كذا تعسينيا وحوي أكسيدنت يا دعي نبكا دعي ولكن كتاب كيسي عن تمريض الله كسي جمد الله كورابي baan ugu xumahay oo tiiraanyoonaya ciidibaysa marka arrintaasi waxa weeye waa tragedy ilaahayna ha u naxariisto rixmkii iyo ahalkii qaraabadu ka tagayna Allah ay samadiina ka siiyo iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed waa wax aad looga xumaado aniguna shakhsiyan taasida sabiriya waa gartay bal haddii aad la socotay gaariga markii shilku dhacay sidee bay wax u dhaceen askarta ayaa isu soo dhawaatay isqoonsatay isxabadaysay waa accidentii ku dhacay maxaa afgarasho la-aan iyo kala shaki walaalkay baana ku baxay aad baanan uga xumahay sidaasi wax u dhaceen marka kala shaki xabaday isku rideen wax wanaagsan ma ahayn wax fiican maaha dib baa dhacay dibkana sidaas ku dhacay waa tahay markii dilku dhacay kadib waxaa wararku sheegayaan in meydka aad soo aragteen adiga iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo rag kale oo madaxda qaranka ku jira kadibna aad iska wareysateen arrintiisoo baaritaano ay jireen arrimaha bal ka waran arrintaasi way jirtaa baaritaankana anigu shaksiyan kama hordhacayo booliiska iyo gacanta ku haya in la baaro si maraaxilkii sidii wax u dhaceen iyo wejigii qaabkay wax u dhaceen marka faysaska ay marayaan iyo baaritaanka waxaan u daynayaa hay-adaha ku shaqadaas waa tahay bar haddaan markaa gabagabadii ku weydiiyo aragtiyan sidee kula tahay in kala shaki in uu ku baxo oo ku dhinto wasiir dawladda kamida mas-uuliyadda heerkaa sare haya iyo in shaki ilaaladaadu ay ku rasaaseeyaan gaari magaalada dhexdeeda maraya oo mas-uul saaran yahay horta ilaalada way israsaasaysay ilaalo labada dhinac oo rasaas baa ka dhacday waa ayaan daro anigaa ku dhiman lahaa mas-uul kalaa ku dhiman lahaa waa ayaan daro weye marka israsaasaynta iyo kala shakiga ciidanku markii koowaad maaha markii aan arkayo intaa waan arkay aniga maalin walba arka anaga lay rasaaseeyaa si shaki ah marka shakigaasi iyo ciidamadan tirada badan ee waddooyinka saaran mashaakilkooda ay leeyihiin
hadda sidan hadda dhacday ciidamo kala shakiyey israsaasiyey isu soo dhawaaday dhibka waad garan kartaa wax laga xumaado weeye sababtoo ah anigay noqon karta qofkaan dhinta